soo dhicista dhagax weyn ayaa sida labada og yahayba waxa uu qabsaday hadalhayntiisa baraha bulshada iyo warbaahinta caalamka kadib markii ay hay'adda Mareykanka u qaabilsan arrimaha xidigiska iyo meerayaasha sare ee NASA ay sheegtay in dhagax weyn uu ku soo dhici doono dunida meel ka mid ah. sidoo kale waxaa arrinka la xiriira dhagaxa soo dhici doona wax ka qoray wargeys ka soo baxa dalka UK ee Daily Express. wargeyska ayaa lagu daawacay in dhagax aad weyn uu ku soo dhici doono dunida iyagoo bartooda Twitter-ka ay ku soo qoreen maalin cayiman oo ahayd 29 bisha Abriil, isla markaana uu dhagaxaasi dunida burburin doono. marka laga soo tago hadalhaynta la xiriira dhagaxani ee baraha bulshada iyo warbaahinta caalamka, haddana waxaa jira ka bulsho ahaan dad iyagu aan isticmaalin baraha bulshada isla markaana isla dhex marayo arrintani, waxaana ka mid ahaa caruur aad u daayar. haddaba muxuu yahay dhagaxani muranka iyo cabsida badan dhaliyay? waa dhagax dhex marayo masaafooyin ka dhow meerayaasha kale, waxaana loogu yeeri jiray ama lagu magacaabaa 1998 OR2. balaciisa ayaa lagu sheegay ilaa 3000 oo kiiloomitir. masaafada uu inoo jiro ee uu dhex dabaalanayo waa 6 milyan oo kiiloomitir, waana 16 jibaar masaafada uu dayaxa inoo jiro. xawaaraha uu ku socdo waxaa sidoo kale lagu sheegay 20 ilaa 30 kun oo kiiloomitir saacadiiba. waxaa markii ugu horeysay shaaca laga qaaday sanadkii 1998 in ay tahay musiibo ballaaran, taasi oo tirtiri karta ilbaxnimada aadanaha. waxaa si sahlan arrinkani ku rumaystay qaybo badan oo bulshadeena ka mid ah. saynisyahanada ayaa dhagaxani hadda u bixiyay Atlas, waxayna sheegeen in uu ka weyn yahay sida loo maleynayo. saynisyahanada qaar ayaa sheegay in dhagaxani 80meeyadii sidan oo kale loo arkay qiyaasaha wareegiisa oo la saadaaliyay, isla markaana uu soo noqon doono 2020 isagoo sanadkii 2013 u dhawaaday cadceedda. waxay isku raacsan yihiin saynisyahanada in dhagaxani Atlas mar kale si cad uga wada muuqan doono caalamka marka la gaaro 30 bisha Maarso sanadka 2021. isla sanadkaasi bisha May uu ku qarsoomi doono cirbixiyeenka waqooyi ee caalamka.